السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك، عيد وناكسن. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فرحات رين بشباش iyo barwaaqo iyo nabad ku ciida meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Isku soo noqod wanaagsan. Waxaan ka hadli doonaa maanta waa casharkeeni labaad ee barashada cilmiga kombiyuutarka khaasatan Microsoft Excel 2007. insha allahu tacaala casharadeeni waxa waaye waan sii wadi doonaa halkii aynu joognay ayaan kasii wadi doonaa. marka waad ku mahadsan tihiin dulqaadkiina iyo intaanu kala maqnayn. marka hadda kadib casharada waxay noo noqon doonaan casharadeeni kuwa taxana ah oo halkoodii ayaan kasii wadi doonaa. marka hadda casharkan waxaan ka hadli doonaa sida loo copy gareeyo worksheet, iyo waxaan kaloo ka hadli doonaa sida magaca looga bedelo worksheetka. waxaan kaloo ka hadli doonaa row iyo column waxay kala yihiin. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa sida text loogu qoro Excelka iyo sida loo delete gareeyo textiga ama qoraalka. intaas ayaan ka hadli doonaa casharkan kaga hadli doonaa aan kaga bogan doonaa insha allahu tacaala. ila sox marka waxaan furi doonaa marka Excelka. waan furay. marka waxaan ka bilow doonaa sida loo copy gareeyo worksheet. tusaale hadda waxaynu joognaa halkan worksheetkan. hadda halkan waxaa inoogu diyaarsan ilaa 3 worksheet 1 2 3. tusaale ahaan hadda ka koowaad ayaan rabaa. tusaale ahaan ayaa waxa igu qoran oo kale halkan worksheetka koowaad ayaa waxa igu jira oo kale mawduucyo ama barnaamijyo muhiim ah ayaa igu jira halkan oo kale. hadda wax kuma qorna laakiin tusaalan ka soo qaadaya. marka waxaan rabaa inaan meel kale aan ku copy gareeyo amaba inaan badiyo amaba inaan copy gareysto. waxaan sameynayaa marka sheet 1ka ayaan dooranayaa. step kalena waa jiraan. stepka koowaad waxaan sameyn doonaa sheetka ayaan dooranaynaa dushiisa. markaan doorno waxaan leenahay marka right click markaan dhaho marka waxaan dooranayaa move or copy meesha ay ku qoran tahay ayaan leeyahay click markaan siiyo marka wuxuu ii soo saaray marka dialog boxkan marka waxaan ka dooranayaa create a copy meesha ay ku qoran tahay ayaa waxaan saarayaa check ayaan saarayaa. check markaan saaro marka kadib waxaan leeyahay okay. waa ka marka halka maxaa ku qoran marka sheet 1 2. marka waan copy gareeyay. kii hore waa kana sheet 1 ku qoran oo kaliya, kana waxaa ku qoran sheet 1 2. marka 2 gaas marka waxay cadeynaysaa inaan copy gareeyay. okay. marka sidee loo delete gareeyaa marka worksheetkan? right click aan leeyahay waan dooranayaa kadibna waxaan leeyahay delete. inkastoo hadda sida loo delete gareeyo casharkeena uusan ku saabsanayn laakiinse waa iskaga faa'iiday waa just waa iska faa'iido un. okay. marka stepka kale waxaan sameynaynaa sheetka aan rabno inaan copy gareyno ayaan dooranaynaa. markaan doorano kadib waxaan tegaynaa homena waan joogaa. kadibna waxaan kasii tegayaa halka ay ku qoran tahay format. halka fiiri format oo ka tirsan sales group. format markaan doorto kadibna waxaan ka dooranayaa halka fiiri waxaa ku qoran halkan move or copy. waa stepka labaad. okay. kadibna jegaan saaraya halka kadibna waxaan leeyahay okay. waa ka sheet 2 waa copy gareeyay. delete aan dhaha marka labadaas step ama labadaas qaabba waa samayn kartaa. tilaabada labaad ama qaybta labaad aan ka hadli doono waxay tahay sida magaca looga bedelo ama rename loogu sameeyo worksheetka. tusaale waxaan rabaa sheet 1 kan inaan magacaan ka bedelo. laba qaabba waa samayn karaa. waxaan ku hormarayaa qaabka koowaad oo ah double click inaan siiyo. double click waa ka double click markaan siiyo marka waxaan ku qorayaa magacaan rabo inaan ku qoro. tusaale waxaan rabaa oo kale Mubarak Zad inaan ku qoro tusaale. okay. waa ka waan ku qoray kadibna waxaan leeyahay marka okay. halka ayaa okay ayaan ku leeyahay okay. waa kaas marka waa bedelay. waxaan ku qoray Mubarak Zad 1 Mubarak Z. tusaale saad u fahamto ka labaadna aan doorto sheet 2ga waxaan ku qorayaa asagana magac kale aan ku qorayaa. tusaale ahaan 10 oo kale. double click aan siinayaa. weli waxaan ku guda jirnaa stepka koowaad ama qaabka koowaad. okay. double click markaan siiyo marka waxaan ku qorayaa oo kale 10 oo kale 10. kadibna waxaan leeyahay okay. muujada hadda waa bedelnay.
mubaarak zaadka koowaad sheetka koowaad sheetka labaadna waxaan ka dhigay 10 ka saddexaad marka waxaan adeegsanaynaa qaabka labaad oo ah waxaan tagaynaa home tab home on jooga waka kadibna waxaan tagayaa format group yani format sorry oo ka tirsan sales group format markaan tago waxaan ka dooranayaa marka rename waka waa stepka labaad rename kadibna waxaan ku qorayaa magacaan rabo inaan ku qoro for example oo kale waxaan rabaa inaan ku qoro oo kale education oo kale tusaale education oo kale okay kadibna waxaan leeyahay enter ama waka education marka sheet 1 waxaan ku qoray mubaarak z ama mubaarak z sheet 2 waxaan ku qoray 10 sheet 3 waxaan ku qoray education marka qaabkaas ayaa loo badbedelaa worksheetska ayaa magac looga bedelaa waxay la tahay intaas inaad garatay ama inaad fahamteen okay waxaan baranaynaa marka hadana column iyo row maxay kala yihiin okay column-ka hadda fiiri inta ka bilow a fiiri waan ku calaamadeyn doonaa dhowdii a b c d e f halkaas waxaa la isku yiraahdaa waa column inta waxaa la isku yiraahdaa column a b c d c wad ilaa halka ilaa f ilaa t ilaa u ilaa halkaas c wad dhankan intaan halahaas waxaa la isku yiraahdaa waa column wixii halkan jiro waa column kan waa column kan waa column c waa column d waa column e waa column f waa column okay rowgana wuxuu noqonayaa kan halkan ka bilow 1 2 3 4 tiradaas inta ku qoran leenkaas dhinacaas rowga waa kan rowga waa kan midka aan doortay waa row dhinacan waa row kanna waa column kuwaas waa column waan ku calaamadeyn doonaa waxa column-ka ah iyo wixii rowga ah waan ku calaamadeynaya okay waxaa noo haray marka cell kana waxaa la yiraahdaa cell kuwan waxaa la yiraahdaa cell kuwan dhan waa cells boxyadan ama sanduuqyadan halkan ku jira waxaa la yiraahdaa waa cells waa cell kan kaligiis waa cell kan waa cell kan waa cell kan waa cell kale kan waa cell kale kan waa cell waa sanduuqyadan ama godgodyadan waxaa la isku yiraahdaa waa cells okay waxaa la tahay inaad fahamtay column iyo row okay waxaan dhahnay column-ka waa kan qaybtan kore a b c d e f g waa column tusaale ahaan column a column b column c column d ayaa leedahay dhowdii column e column f column g waxay la mid ah rowgana tusaale ahaan waxaa leedahay row 1 row 2 row 3 row 4 row 5 row 6 row 7 ayaa leedahay waa rows kuwana waa column xalta intaas inaad garatay qaybta afaraad waxaan ka hadlaynaa sida qoraal loogu daro ama wax loogu qoro cell-ka wax kala ma sameynaysid kaliya waxa sameynaysaa halkaad rabto inaad wax ku qorto ayaad dooranaysaa tusaale halkaas ayaan rabaa inaan wax ku qoro waan doortay kadibna qoraalkii aan qorayaa waa ka qoraalkii ayaan qorayaa marka qaabkaas un baa loo sameeyaa wax loogu qoraa cell-ska okay sidee loo delete gareeyaa ama loo tirtiraa wixii aad ku qortay cell-ka wax kale ma sameynaysid waxaad adeegsanaysaa backspace okay backspace-ka wuxuu ku yaalaa keyboard-ka ayaad tagaysaa keyboard-ka backspace ku qoran kadibna waad dooranaysaa intaadan dooran marka hore cursor-ka waxaa la yiraahdaa midkan boodboodaya mujida bahalkan boodboodaya ayaa waxaad geynaysaa marka qoraalka dhamaadkiisa markaad geyso kadibna waxaad dooranaysaa backspace waa ka marka waan tirtiraya hadda mujida cursor-ka waa midkaas boodboodaya mujida kaasaa la yiraahdaa cursor okay ama insertion point intuba waa la yiraahdaa insertion point ama cursor kadibna waxaa leedahay marka backspace aad dooranaysaa delete waa ka hadda waxaan wadaa marka deleting ama waan tirtirayaa tirtiridan wadaa okay backspace waa ka waxay la tahay intaas inaad garateen okay marka casharkeeni ku saabsanaa barashada cilmiga computerka especially Microsoft Excel halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa fadlan haddii aad ka heshay casharka like garay videogana sii share garay wixii faala ama comment aad haysan halka comment igu dhaaf waad mahadsantihiin waa inoo casharka xiga iyo sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak